nolol habooyo naxariisi si isa kulanti waxaan wanaagsantaa wadayaal markasta dunida daafiyada ka joogtaan waa mar kale iyo miskiintiini oo idinle iska noqdo waxaan wanaagsan channelka aad naga daawanaysaan waa channelkeena Hodan Fashion Channel asxaabteeda qiimaha iyo qadarinta mudan ee igu soo biirtay waxaan idin leeyahay waad ku mahadsantihiin ku soo biiritaanka aad igu soo biirteen waan idinka mahad celinayaa soo dhawaada xiniyo bunkiina sololkiina intaba soo qaata aad baad ugu mahadsantihiin daawashada daawanaysan waxaan idin ka codsanayaa fadlan haddaad channelkayga ku cusub tahay inaad subscribe saartid kambaleelkana furtid intaba aad ku dabagelisid like-tana dhac ku siisid aad baad u mahadsantihiin intaa kadib waxaan rabaa inaan falanqeyno inantii Amal Diamond ee lagu yaqaanay TikTok-ta iyo waxyaabo badan oo kale lagu yaqaanay iyadoo meelaha ka niikisa maanta way soo dhaaftay baa la leeyahay wixii oo dhan hees ayay soo qaatay bal aynu wada eegno sideedii bay dhaqankeedii xumaa sameyn doontaa mise tolo way iska bedeli doontaa bal aynu wada eegno inkastoo bariyahan shaashada lagu arag oo aan islahaa way ka soo noqoto waxyaabihii xumaan bafoosh xumaa ay sameynaysay bal aynu wada eegno insha Allah markaynu aragno aynu daawano aynu fikirkeena ka dhiiban doonaa haddana aynu wada daawano kilibkeedan Amal Diamond كسر عليها ها شبك بالحري شبك شكل انت سوى العطي ايا نيس يوح الحري شبك انو وحن كوا اورن كراو ما بجرت بد سبحان الله horta waxa weeyaan hada maaha wax cusub kuma aha Amal Diamond waxa way iska taqaanay wax soo iska ciyaaraheedii balse laakiin hees balilay way qaadaysaa bal action kama mar dambe aynu ku noqonayn wada eegno kan Afrikaan miya soo indhahaya bal aynu ku socono runtii iyadoon looga gelin heesta ama gudaheedaba la gelin waxyaabaha la sameynayo ama lagu dhaqmayo waa aad dhaqan aynan u lahayn ama aynan heesaheena geeyena Soomaalida ama rabahaadana mees caadi ah ahaato lagu sameeyo ma balse laakiin waa yurub free weeyaan waxa weeye kada hore Amal nolosheeda iska sidaas waxa laga qaban karaa ma jirto bal aynu ku socono ninka Soomaali wuu yahay xaqiiqatan waa heestii ugu koobaad baan u maleynayaa inan sidan ah oo waliba Soomaaliyada wiil Soomaali hees la soo duubo wayn aragnay sida wiilal baliil oo kale naaga cadaan oo heesiisa uu ku soo daraa laakiin inan Soomaaliyada san u qaawan walibana jirkeedii wada muuqan yahay hees la qaadayo qurbaa laga dhaxlaa laakiin hal meel bay kaga yara taagantay farto ama aad gabar Soomaaliyeed ku tilmaamaysid marka hore waa inay dhaqankii haysataa laakiin wax qaabkan deeano qaabkan baladu qaabkan maxad ka waran wax qof qaabkan ah inaad Soomaali ku sheegtaa waa qalad xaqiiq waxna ma leenahay Soomaali meel kale mitishaada waqtigan gabadhan laakiin heesu midheedu iska raab wala iska qaadan karaa waliba boqolkiiba waxaan oran lahaa 20 waayo maadaama
aanu iba cajibinin muuqaal ahaanteedu heesta waxaan ku qaataa 20% ayaan odhan karaa laakiin aan kusii socono heestan haddii aan waxyaabo kale kaba sii yara dhex falanqayn lahaa yartu waa Soomaali saasay u socotaa hawshu oo yartu waa Soomaali bay ku noqonaysaa heestu haddaba waxa qurux badnaan lahayd walaal wiilow kolley waxaad ku cusubtaan malaynaya hadda qaybta raabka hadda waad ku cusubtahay heestaadana iiga horeysa in iyaduna biijka dambe ka qaadi doontaan malaynaya wala waana dhegeysan hadda iiga horeyso laakiin yartu waa Soomaali markaad leedahay waxyaabahan isticmaalaysid Soomaalidu ma isticmaasho moogtahay sida kale labaad inantan aad yartu waa Soomaalida haysid marka hore waa la soo asturaa dhaqankeena iyo dhaqankeena inaga diin ahaan bayna u isticmaalin dhaqan wax la yiraahdo jirta dhaqankii markaad u soo xidhid inanta ayaad oran kartaa inantu waa Soomaali oo way ifaysa yani waxaad raacin kartaa laakiin gabar sidan oo dhexdeeda way yartay waxaad dhuraysid dhexdeeda waa loo jeedaabe oo dhexdeeda way muuqataa maxaad markaa ka si falanqeynad ka oran waa Soomaali intaasaan ka oranaya laakiin bal aynu ku sii socono in yaro daqiiqado kooban ayaynu sii dhigeysan doonaa ay nuuxinaysaa kas okay heestan aan usaan horeeyay ku sheegay hadii dhaqankii iyo suugaantay xataa lahaan la inta badan heesaha raabku saas iska yihiin ayaguba ruuxooda laakiin heestan marka uu inanku kusan ugu falanqeynaya inantan inuu booska ka bedelayahay oo ina kala soo geliyo oo iyaduna inta kala la qaado balse laakiin anigu ma arka wadaad heesay qaadaso inta ay socotaan 1 minute iyo 50 iyo jarjar bay socotaa bal aan horan u yar wadaya oo eegi doona qadar daqiiqada inaa horay aaday mooy has dhaqayarta ku loo haysakas ma ku jirto be inanta 3 daqiiqo iyo xakii man daawanaya wax inana ku jirtaa ma jirto laakiin wali waxay siinay maxaa laakiin amaaldeema lagu soo qoray heesta hadana kuba jirin ba iyadu waxa weeyaan maxaa la dhahaa waxa jirta had iyo jeeraale marka ay cadaanka magaaladu ay iibinayaan waxay sameeyaan naagiba naagti ka qurux badan tahay soo istaajiyaan halkan u badan tahay soo istaajiyaan hadii ka shil xaysiineen ku xaysiin hadii garan xaysiineen ku xaysiiyaan halka marka ma sheekadii cadaanka laga daba socdaayo heestii baa lagu macaaneynaya miyaynanta oo amaaldeema baa hees soo qaaday wixii aan ku arkaa halka qalad ma fahanteen marka heestan sideedaba reedeedu saas uma sii xumo oo iska heesaa raabka laakiin inta kaliya aan ku qaadan waayo waxay tahay clipkan uu ashxun yahay yani hatta caruur uma qurux badna inay daawadaan markaas heestan waan ku diiday muuqaal ahaanteeda ta kale ay farta ku godantayna waxa weeyaan inaan dhaqan Soomaaliyeed u xidhnayno caloosheedii xunteedu ba qaawan tahay shibigna xiran buu leeyahay inantu waa Soomaali dhaqankeenu waa dhaqan soo jireena hidiyo dhaqanna waxaan u lahayn dhar caadi ah inaga inoo gooniya marka hadda taa ku soo heesi lahayd waxbaan oran lahayd inan soo xidhi lahayd hatta iyadaba dad soo xidhi lahayd laakiin inay dabada kaga nikiso iyo inay dhexdeeda qaawisay inay shabaga xidhatay amaldheema wuxuu caadaa taas wuxuu kama oran karno maanta way gabadh cusub maaha haday gabadh cusub tahay wax laga oran lahaa marka waxaan dilan lahaa asxaabteeda qaayaha iyo qiimaha iyo qadarinta mudan clipkan halkaas aan kusoo gabagabaynayaa intaan clipkan xiga ku kulmi doono waxaan leeyahay waa walaashin hodana idin leeyahay aad baan salaamaya kolkaaga nolol habooyo naxariis